Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu saxaabada qiimiga badan kusoo dhawaada channelkeena Somali Technology ama Somtech. Maanta waxaan idin wada barnaamij waxaan idin wadaa waa barnaamijkani how to waxaan idin tusayaa sida computerkaaga aad ku nadiifin lahayd ama computerkaaga performancegiisa aad sare ugu qaadi lahayd. Okay, qodobo 5 ah ayaa idinla wadaagayaa. 5ta qodob ayaad samaynaysaa dabeedna computerka xawaarihiisa wuu isbedelayaa korna wuu u qaadmayaa. Okay, let's go. bilowno. Okay, qodob koowaad waxa weeyaan cleaning, general cleaning. Okay, to do that one waxaan isla taabanaa window plus r waxaan ku qoraynaa m. Okay, waxaan dhaliidanaa file kasta oo temporary computerkan ku ah ayaan dhaliidaynaa. Okay, shift plus delete. You delete all of them. Okay, isla isagan ku laabanaynaa window plus r dabeedna waxaan ku qoraynaa calaamada percentage-ka ayaan ka hormarinaa percentage temp and then another percentage then okay, and then here control a delete every files. Files halkan waa ka dhaliidanaa ayaguna waa temporary ayay computerkana ku yihiin xawaarihiisa ayay wax u dhimayaan computerkana saas ayaguna ugu dhaliidaynaa. Okay, again meesha ayaan ku laabanaynaa window plus r waxaan ku qoraynaa prefetch ayaan ku qoraynaa waa isla faylashii temporary-ga ahaa ayaan ka dhaliidaynaa computerkeena control plus a and then shift plus delete. Okay, okay, qodob koowaad saasaan ku dhamaynay. Qodobka labaad ayaan u galaynaa oo ah delete files in recycle bin. Okay, recycle bin ayaa tagaynaa wax kastoo fail oo ku jira ayaan ka dhaliidaynaa sababtoo ah recycle binku waxa uu buuxinayaa c drive. C drive-na waa meesha computerka applicationadiisa iyo processorkiisa uu ku jiro. Okay, recycle bin-na waa nadiif. Qodobka saddexaad waxa weeyaan uninstall all the applications which don't use. Applicationada aad isticmaalayn marka aad u baahnayn iska install garee maxaa yeelay space loo baahan yahay ayay buuxinayaan. Okay, halkan imow settings tag. Settings markaad tagtid waxaa sii tagtaa apps application sii dooro dabeeta apps and features sii dooro halkan ka install garee application kaste oo marka aad u baahnayn uninstall iska dheh. Okay, hadda like this one I don't need uninstall. Then you do like this each and every one that you don't need. Application kasta aad u baahnayn sidaas ayaad iskaga install garayn kartaa adoo computerkaaga siinaya xawaare iyo space ku filan uu computerkaaga ku shaqeeyo. Okay, next finish. Okay, qodobka afraad waxa weeyaan optimizing C drive. C drive ayaa rabtaa inaad optimize garaysid. Okay, come here my computer then C drive right click then property then tools. Tools markaad dooratid waxaad dooranaysaa optimize. Optimize means waxa weeyaan comprise files and data. Okay, faylashii kala fiirsanaa oo kala baxsanaa ayaad isu keenaysaa adoo space C drive space-kiisa yareynaya. Okay, optimize then C drive dooro optimize click optimize then it's going to optimize. Okay, you wait, you give some time. waad sugaysaa ilaa intuu ka dhameynayo boqolkiiba boqol ilaa intuu ka gaari 100%. Okay, you have seen it started counting 7% then it will continue up to 100. Then when you finish 100 then we shall go on the next step. Okay, the next step or final one waxa weeyaan disk clean up. Okay, search waxaad timaadaa window search waxa ku qoraa disk clean up ku qoro.
dabeed waxaad doorataa C, okay, because C waxa weeyaan meesha lagu kaydiyo operating systemka computerka, windowga iyo application wax kasta soo dhan garaysid, okay. Ha dooran meesha adaptada aad ku kaysatid oo ah another driver, okay. C driver dooro sababtoo ah faylasha temporary-ga ama faylasha aad inaad clean garaysid waxay ku jiraan C driver. C baad dooranaysaa dabeed okay ayaa ku dhufanaysaa. Then waxaad dooranaysaa checkbox-kan ayaa tigta saaraysaa kuwa aan tigta aan saarnayn, okay. Checkbox-kan kulligood tigta ayaa saaraysaa kulligood all of them. Then markaad tigta wada saadhid waxaa odhanaysaa okay. Then wuxuu weydiinayaa are you sure you want to permanently delete these files? Delete files baa ku dhufanaysaa, okay. So wuxuu ka saarayaa computerkaaga faylal kaste oo markaas extra ku ahaa ama duplicates isku sameeyey computerka dhexdiisa, okay. Now your computer performance is 100% reliable and 100% can work perfect. maanta intaas inoo ogtahay casharkeenu. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Ha iloobin inaad Somali Technology aad subscribe dhahdid. Subscribe.